asalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walba oo aad joogtid kuna soo dhowow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. Sheekadan oo markaana qaybaheedii dhexaan isla soo gaarna waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Ciise Maracadda ah, waxaana ka daawanaysaan barta YouTube-ka ee Maracadda Show. Fadlan like saar sheekadan haddii aad ka heshay lana wadaag saaxiibadaada. Qaybtii hore waxay noo joogtay meel xasaasi ah, markaana waxay qaybta ku bilaabanaysaa. Fariid weli waxa uu ku sugnaa gaariga dhexdiisa isaga oo sugaya inta qabriga laga faagayo ama gebi ahaanba laga soo saarayo meydka halkaasi ku jira. Wuxuuna uu ogaa in necromancy uu sameeyo waa hore ugu dambeysay, sidaasi awgeed xamaasad daran ayaa haysay. Wuxuuna dib u celinaya xasuustiisii tan iyo markii ugu dambeysay ee howlgal ceynkani oo kale uu qabto. Inkastoo ninkii Muxsin lagu magacaabi jiray oo maxbuuska ahaa oo xaaskiisa inuu dilo lagu soo eedeeyey oo necromancy u sameeyay, haddana xasuusta taasi qayb kama ahayn, waayo habkii uu u rabay marnaba looma dhigan. Sidoo kalena ujeedo gooni ah ayuu hawshaasi u ka lahaa, taasi oo ahayd sidii uu naftiisa uga badbaadin lahaa xabsiga dhexdiisa. Fariid markii xabsiga uu galay wuxuu durba uu la kulmay qashqashaada, hanjabaada iyo dil joogto ah, iyo sidoo kale waxyaabo waliba oo aad u xumaa. Sidaasi awgeed haddii uu doonayo inuu naftiisa u badbaadiyo waa in uu galaa maganta mid ka mid ah ragga maxaabiista ah ee laga cabsado, sidaasi awgeedna uga badbaadaa dilka joogtada ah ee jirkiisa ku socday u geysanayaan maxaabiista kale. Fariid ayaa wuxuu diyaariyey guud ahaan wixii xog ahayd uu ka heli lahaa raggii maxaabiista ahaa, gaar ahaana kuwoodii ugu saameynta badnaa, waxaana aad u soo jiidatay sheekada ninka maafiyada ah oo lagu eedeeyey inuu xaaskiisa u dilay. Markaas ayuuna ogaaday in ninkani Muxsin lagu magacaabo uu yahay qofkii uu raadin lahaa, xabsiga dhexdiisana uu ku hayn lahaa oo islamarkaana ka difaaci lahaa ragga kale ee sida joogtada u garaaca. Markii aadan tabar dadka isaga dhicisa aadan lahayn, waxaa muhiim ah inaad leedahay caqliga aad isku maarayso. Sidaasi awgeed Fariid wuxuu aad ugu dadaalay inuu kasoo agdhowaado Muxsin, balse waxaa mushkilad ku noqotay sidii uga dhaadhicin lahaa sheekada necromancy-ga la xiriirta. Waxaa ka hor yimaaday dhowr caqabadood oo ay ugu horeyso inuu ka agdhowaado oo gooni uu ula hadla Muxsin haddii ay suurto gasho sidii uu ugu sheegi lahaa sheekada necromancy-ga uuna uga dhaadhicin karo inuu xabsiga dhexdiisa ugu keenay qayb ka mid a jirka xaaskiisa geeriyootay kadibna uu cuno, isagoo weliba madaxiisa ku waayin arrintaasi. Waa maalintii malagaaga uu galay ayuu iskula hadlay Fariid, waxaana ay sheekada ay la noqotay isaga oo dhurwaa ka cararaya god libaaxa uu galay oo kale. Balse Fariid wuxuu ogaa inuu ahaa nin caqli badan, naftiisana uu hubay, iskuna kalsoonaa. Sidaasi awgeed ayuu u go'aansaday intii maalin walba uu jugtaan ay ku dhici lahayd inuu hal mar uu isbiimeeyo, toosna uu u dhinto ama gebi ahaanba si nabadgelya uu ku noolaado. Muddo 3 toddobaad ayay ku qaadatay Fariid inuu ka agdhowaado Muxsin isaga oo aysan jug u dhinnayn, balse ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu si gooni ula kulmo ninkii maafiyada ahaa ee Muxsin. Intaasi kadib wuxuu bilaabay inuu naftiisa ugu warramo iyo in waxyaabaha uu awoodo kuwaas uu samayn karo uga hadlo, uguna horreysa sixirka madow ee necromancy-ga loo yaqaano. Fariid waqtigaasi kama uusan dalban Muxsin inuu arrintaasi isaga uu u sameynayo u sheego, balse kaliya wuxuu u sheegay waxa uu awoodo si uu u rajageliyo qalbiga Muxsin oo aad u baadigoobaya qofka dilay xaaskiisa, kadibna dembiga isaga dusha ka saaray. Muddo 2 maalmood ah markii ay ka soo wareegatay, Muxsin ayaa u yimid Fariid isaga oo weydiiyey su'aal ahayd, ma awoodaa inaad samayso waxaad iiga sheekaysay ee sixirka madow ah? Fariid ayaa markaasi wuxuu ku jawaabay, haa waan awoodaa, waana samayn karaa midaasi. Muxsin ayaa kadib wuxuu yidhi, haddii ay caddaato hadalkaaga inuu been yahay ama aad iqiyaanayso, ogow adiga oo nool in aan ku maqaarsiibayo. Fariid oo cabsi ay gashay ayaa markaasi ku jawaabay, daqiiqadna kuma fakeri karayo inaan adiga aan ku khiyaano, waxa aan kuu sheegayna waa xaqiiqo oo waan awoodaa fulinteeda. Intaasi kadib Muxsin ayaa u sheegay Fariid inuu isaga uu ka warsugo. Muddo 2 maalmood kadib ayaa ka soo wareegatay, Fariidna qolkiisii oo xabsiga uu ku jiray waxa ugu yimid Muxsin, waxaana uu sheegay inuu u keenay qayb ka mid a jirka xaaskiisii geeriyootay, isaga oo ku yidhi, hawshaada baas qabo oo ii sheeg magaca dulligii xaaskayga dilay, wax kale ama tafaasiil kalena ha ii sheegin. Intaasi kadib Muxsin ayaa Fariid waxa uu hordhigay hilbihii xaaskiisa meydka ahayd qayb ka mid ah oo xabsiga loogu keenay qolkii, ayuuna Fariid uu u soo faarujiyey. Muddo saacad kadibna waxaa qolkii ka soo baxay Fariid isaga oo gacanta ku sida warqad uu ku sawiran yahay qofka wejigiisa, kadibna wuxuu warqadii u dhiibay Muxsin isaga oo Muxsin ku yidhi, waa ninka dila xaaskaaga.
muxsin ayaana warqadii ka qaaday fariid, halkii ayuu ka dhaqaaqay. Muddo 2 maalmood ayaa kasoo wareegatay. Maalintii saddexaad fariid waxaa u yimid muxsin isaga oo u sheegay in maanta laga bilaabo uu aamin u yahay, islamarkaana uu xulafadiisa uu ka tirsan yahay, cid u soo dhowaan kartaana aysan jirin ama u gacan qaadi karta. fariid waqtigaasi wuxuu ku sigtay inuu farxad darteed uu boodboodo, balse waa uu isceliyey isaga oo muxsin uga mahadceliyay abaalka uu sameeyey maadaama haatan uu ka badbaaday jugtii badneed ee dadka maxaabiista ay u geysan jireen. intaasi kadib muxsin ayaa inta si hoose ugu soo dhowaaday fariid dhegta wuxuu ugu sheegay wixii ay sameeyeen ee ahaa in hilbaha xaaskiisa uu cunay. haddii qof uu ugu sheekeeyo in carabka uu ka goyn doono, waayo ma doonaya ayuu yidhi in maxaabiista ay ku sheekaystaan arrintaasi oo ay ogaadaan in ninkan hilbaha xaaskiisa cunay uu yahay kan xabsiga ku jira. fariid qudhiisa ma uusan doonaynin sheeko caynkaasi oo kale ah inuu bannaanka u soo bixiyo, sidaasi awgeed arrintaasi wax walwala marnaba kuma aysan haynin. wuxuu ku kalsoonaa in sirta necromansiga ay ahaan doonto mid gebi ahaantood mar walba qarsoon. muddadii xabsiga uu ku jiray fariid sheekadan qofna ugama uusan sheekaynin, marka laga reebo nin ay saaxiiba ay noqdeen oo hal qol ay wada seexan jireen. intaa kadibna ninkii fariid saaxiibada ay ahaayeen waxa uu arrintii u sheegay yaara. fariid markii uu ogaaday in sirtiisii gabadhaasi yaara lagu magacaabay ee ogaatay aad ayuu uga carooday, wuxuuna ninkii saaxiibaday ahaayeen ugu hanjabay inuu muxsin arrintiisa u sheegi doono haddii uusan si degdega ula kulansiinin gabadha sirtooda uu u sheegay. intaa kadib ninkii ayaa waxa uu isku ballamiyey yaara iyo fariid, iyadoo halkaasi barashadoodii ay ka dhacday. kulankoodii ugu horreeyay ee yaara iyo fariid ay wada qaateen wuxuu ahaa mid aad u caraysan, isaga oo yaara ku yidhi, adiga waxaa tahay gabar aad u wanaagsan, waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah adigana inaan hilbahaaga aan cuno. hadalkaasi ayaa fariid uu yidhi inkastoo yaara qudheeda uu ka xanaajiyey kuna sigatay xitaa inay xanaaqii kala dul dhacdo, haddana way iscelisay, waxaanay ahayd gabar aad u caqli badan oo danteeda gebi ahaanba taqaana. sidaasi aaweed ayaa waxay ugu jawaab celisay dhoolla caddeyn iyo erayo yaab ah oo ahaa, hadalkaadi tir waa hadalkii ugu quruxda badnaa ee aan weligii aniga maqlo, dadkana ay igu yidhaahdaan. intaa kadib fariid iyo yaara ayaa si caadi ay isku barteen, iyadoo kulankaasi ka sokow kulamo kale oo badan ay wada qaateen. wuxuu fariid mar walba uga sheekeyn jiray yaara waxyaabo badan oo ku saabsan noloshiisa, sidii uu ku soo koray, qoyskiisa iyo waxyaabo kale oo ka duwan korinshihiisii nololeed. wuxuu markii dambe yaara ka codsaday inay ka shaqayso sidii xabsiga looga bedeli lahaa, islamarkaana loogu wareejin lahaa xabsi magaalada dhexdeeda ku yaala, isagoo ujeedkiisa u ahaa inuu qoyskiisa uu ka agdhowaado. yaara way isku dayday inay codsigiisa ay fuliso, balse midaasi way ku guul daraysatay. intaasi kadib fariid wuxuu bilaabay inuu yaaro uga sheekeeyo waxa uu yahay necromancy iyo sixirka madow. waxay yaara ahayd mid aad u dhageysata, weliba si caadi ah, hadalladiisana wax labalabaa kama aysan muujin jirin sida dadka kaleba ay sameeyaan. sidoo kalena wax su-aala kama weydiin jirin, balse taasi beddelkeeda xorriyad toosa ayay siisay si uu isaga wax walba ugu sheego. yaara dhankeeda waxay fariid uga sheekaysay qisadii soo qabatay iyo sidii gacantay ugu soo dhigtay dilaaga reer aakhiraadka ahaa, halka fariidna uu aad ula yaabay kartida iyo caqli badnaanta yaara. intaani oo hore oo dhanna waxay ahaayeen sheeko dib aan uga sheekayno oo ku saabsan fariid, balse markaan aan dib ugu soo laabanno sheekadeennii iyo halkii ay noo joogtay. muddadii fariid uu ka fakeraya xabsigii iyo noloshiisii hore ee necromansiga ayay kooxdii qabriga qodaysay howshoodii ay soo dhammeeyeen. intaasi kadibna taabuudkii qabriga dhex yaalla ama qaybta meydka la geliyay ayay soo fureen, iyagoo meydkii kusoo riday sanduuqii ay horey ugu diyaariyeen, waxayna sanduuqii ay ku rideen gaarigii ay saarnaayeen ee ahaa sanduuqiisa dambe. intaasi kadib daariq ayaana gaarigii u kaxeeya dhanka iyo guriga yaara, wuxuuna daariq uu weydiiyey yaara, sidee ayay meydkaan u gelin karnaa gurigaada iyadoo qofna uusanna arkin. yaara ayaa markaasi kadib waxay ku jawaabtay, waxaan soo kareeyay guri cusub, weliba waxaan ka soo kareeyay goob cidlo ah oo isha dadkana ka fog. guryaha agagaarkiisa ku yaalana badankood waa kuwo cidlo ah oo aan la deganeyn. sidoo kalena dhowr sanduuq ayaan horay guriga u geeyay, anigoona deriska uga sheekeeya in aan sanduuqyadaani ay igu jiraan alaabteyda khaaskii ah, maadaama aan gurigaasi cusub aan usoo wareegayo. marka haatan sanduuq kale haddii ay arkaan, xitaa wax shaki ah kama keenayaan arrintaas. fariid aad ayuu ula yaabay caqli badnaanta mar kale ay samaysay yaara, waxaana uu yidhi, waaw, alla muxuu caqliga ku dhammaaday, mar walba waad kasii fikeraysaa waxa dhacaya. yaara ayaa markaasi waxay u jawaabtay fariid oo waxay tidhi, sidoo kalena ogow gurigani cusub inuu yahay mid aanan xabsi waxba dhaamin, meel laga baxna aan lahayn.
halkaas ayaadna maxbuus ku ahaan doontaa muddada aad howlgalkan aad ku jirto. Sidoo kalena guriga waxaa lagu asteyn doonaa sistamka lugta, kaasi oo adiga kaaga xiran lugta, oo haddii aad isku daydo guriga inaad ka baxdo, horay ayuu fariin digniin oo qaylo ah uu kasoo dirayaa. Taariikh ayaa markaasi kadib inta Fariid dhankiisii soo qooraansaday waxa uu yidhi, haddii aad isku daydo inaad baxsato oo gacanta lagugu soo dhigana waxaad ogaataa marnaba in aadan ku farxi doonin waxa kugu dhici doona. Fariid markaasi baqdan yar ayaa gashay, markaas ayaa hadalkii inta uu qaatay waxa uu yidhi, rumaysta marnaba iskuma dayi doono inaan baxsado. Intaasi kadib saddexdoodii ayaa waxa ay gaareen gurigii, waxaana guriga uu ka koobnaa 3 qol oo waaweyn, barxad, musqul iyo jiko. Sidoo kalena guriga wuxuu ahaa guri alaabtiisa ay u dhammaystiran tahay. Daqiiqado yar kadibna waxaa gurigii galay Marwaan iyo ninkii la socday oo gaarigooda ku sida sanduuqii meydka uu ku jiray. Taariikh ayaana markaasi gudaha guriga galay si uu ugu dhunto ninka Marwaan la socdo, wejigiisana aan loo arkin. Intaasi kadib Marwaan iyo ninkii ayaa sanduuqii meydka ku jiray gudaha guriga geliyay. Marwaan ayaa markaasi inta uu soo baxay islamarkaana uu eega dhanka iyo Fariid waxa uu ku yidhi, waxaan doonayaa kaliya inaan kuu sheego aniga inaan haataanan ahayn kuwa qabriyada xada, balse arrinkaani waxaan u samaynayaa Yaara darteed, waayo abaal badan ayay aniga igu leedahay. Yaara ayaa markaasi Marwaan u jawaabtay oo waxay tidhi, mahadsanid Marwaan, hawsha aad ii qabatay qof kale iima qaban karin, sidaasi aageed aniga ayaa kuu mahadcelinayo. Fariid ayaa markaasi kadib inta uu soo kala dhex galay hadalkii wuxuu ku yidhi, anigana waan kuu mahadcelinayaa hawsha aad qabatayna waan bogaadinayaa, waxaan rajaynayaa qofka aad meydkiisa keentay in hilbihiisa ay aad u macaan yihiin. Halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.